banaanbaxani ay banaanbaxayaan dadweynaha reer koonfur galbeed ayaa socdo maalintii saddexaad isla markaasna oo ka socda gudaha magaalada Baydhabo ayadoona si weyn ugu soo qulqulayaan dadweynihii degnaa degmooyinka u dhow magaalada Baydhabo subaxani ayaa dadweynaha ay ku qulquleen gurigii uu degnaa Shariif Xasan isla markaasna uu ku dhaawacmay mid ka mid ah muwaadin koonfur galbeed ee Soomaaliya oo isla markaasna uu watay calanka koonfur galbeed Soomaaliya wiilkan yarka oo muwaadinka ah ayaa xabad ku dhuftay mid ka mid ah staafka Shariif Xasan isla markaasna loo qaaday mid ka mid ah staafka Shariif Xasan isla markaasna loo qaaday isbitaalka weyn by Regional Hospital banaanbaxaasi intii lagu guda jiray ayaa u imaaday wasiirka arrimaha gudaha ee amniga koonfur galbeed Soomaaliya mudane Afitax Geese isla markaasna fagaaro ugu qudbeeyay dadweynihii ku banaanbaxayay magaalada Baydhabo Shariif Xasan ayaa wali oo ka duulin gudaha magaalada Baydhabo isla markaasna dadweynaha reer koonfur galbeed ayagana ay sheegeen inay ku waayay doonaan naftooda ilaa iyo Shariif Xasan uu kaga baxayo gudaha magaalada Baydhabo waa kan wasiirka arrimaha gudaha ee amniga qaranka ee koonfur galbeed oo u qudbeynayo dadweynihii reer koonfur galbeed dhammaan shacabweynaha reer koonfur galbeed maybaasiin ka salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shacabka reer Baydhabo ee reer koonfur galbeed ha israaceen ha midoobeen adowgooda ha jabo ha dhinto ha dhammaado eedi eedan baadsantin mayfadeen markaan ka horrayta inaan mahadnaga dhammaan shacabweynaha reer koonfur galbeed meel walba iyo roogan mayfadeygana mahadbileeran aan hanjeedi marka koowaad shacabka reer koonfur galbeed sanhamiin iyo gee aan surin waaye lamahamiin lamageewa lahajeedi insha allahu tacaala 2 sano iyo 20 sano walaan jeedee intii ku guulaysaas koonfur galbeed hadawshee ku jabaw ku saldhikaasa dawladda magali bilaan mayna kala dardaaramaane in sidii hanjeedan diyaar magihidina in koonfur galbeed difaacdan diyaar magihidina nafii maalin hurtaan diyaar magihidina may farahingan mahadnaga ee gaar ahaan xildhibaanada dowladda federaalka ee ha ku jeeda koonfur galbeed ee sida gaarka ah aan difaaceen qadiyadda koonfur galbeed iyo may farahingan si gaaran ka mahadnaga oo xamar ku hadaloohayo oo Baydhabo ku hadaloohayo shacabka reer koonfur galbeedow may sii sheegay caalamka adduunweynaha international community-ga igad ma inkiri doonaan doorkaysi qaadateen waana aqoonsayin waana aqoonsado doonaan dowladdana aragtay dhisanti waana dhimaastirmaasa ilaahayna aragtaysan guulayi baqiyasan waaye may ka diyaar garoobaasana in sidii koonfur galbeed ka dhisama fadhi ka dhimaatiro fadhi ka badbaado fadhi diyaar magihidina aan diidan koonfur galbeed oo ku horkoysan in aragtay gaambiro la kala diyaar magihidina anna masanga raaw Shariif Xasan bahay masanga raaw roogohay masanga raaw dooyan baroogoy koonfur galbeed wal difaaca isu difaacdan la sii حسنوا شيء اللي إن الله أنت ديدن كافر قلبك أنت بيدوك بحاسة كل ملايان كشل تبايان كونوا دياران هنا تبين ميل الرأي تبكي إذوشا مجيب لهايان تبكي بندير مباس لهايان تبكارك ميل من بهايان إبراهة الكلة السورية وجيغ من دقلة مرقى بويسنا والكلة مرقى سنة ميل سورية كافر قلبك لنجي بها البطن لكن هم إلهي أران أولكي توغانا بهدونتا أود إلهي كبهدونتا أود شعب كرا كافر قلبك يك بهدونتا مبالن دادني تاس إن أودين لكتير من الله لكي كافر قلبك ديدن مبالن دادني رانا إن قلنكين أرق دي أفكين دي أودين أولادين دي أردين كافر قلبك كدفعنا مبالن دادني
mal sheego been afarta albaab waa ku hiri irkana walaa ku hire in alla inti diidi koonfur galbeed yadama ballan qaadne ilaahay ballan qaadi isin ballan qaadeen koonfur galbeed meerteen koonfur galbeed meerteen Abdulqaadir Jokar Bedhowjanaay